السلام عليكم صاحب يال سو دhowaada halkan iga dambaysa ama goobtan hadda aan joogo waa Dahab Tower waa dabaq ka kooban ilaa iyo 25 biyaano injineerada waxa ay noo sheegeen in 4 biyaano gudaha ay ku jirto dabaqana waxa ay sidoo kale noo sheegeen inuu yahay kan ugu dheer qaaradda Afrika hadda malaysanaysa waa qaaradda Afrika oo dhan waxa uu noqon doonaa dabaqa ugu dheer Soomaaliya oo leh horumar ay ku talaabsatay sidoo kale dhismayaasha ayaa maaragtay socda waa biyaanadii shanaad iyadoo la sugayo in ilaa iyo 20 kaleetana dabcan la saaro qaybo kale ayaan maaragtay hoosan u digi doonaa ilaa iyo meel kale oo badan ayaan mari doonaa dabaqan ku saabsan aad la socono dabaqan waxaa dhisaya Dahabshiil Group magaciisana waa Dahab Tower waxaan u soconaa qaybta kore فولينا قيبت كوري هاي ugu dambeyn waxaan imaaday fooqa sare waa daartii ugu dheerayd Muqdisho oo laga dhisi doono waxaa dhisanaysa shirkadda Dahabshiil Group Dahab Tower ayaa loo daawadayaal sidaad la socotaanba dabaqan waa dabaqa ugu dheer Afrika naqshadihiisa markaan aragnay oo lagu baahiyay baraha bulshada wuxuu noqday dabaqa ugu dheer Afrika wuxuuna noqday dabaqa ugu quruxda badan Afrika haddaba yaa hirgelinaya oo dhismahan ka shaqeynaya waa Dahab Tower waxaa dhisaya shirkadda Dahabshiil Group waxayna qayb weyn ka qaadatay horumarka iyo bilicda dalka daawadayaal waxaan rabaa hadda inaan fuulo wiishkaas aad u jeedin ayaan rabaa inaan fuulo kadibna waxaan rabaa shaqada say u socoto quruxda iyo horumarka ee lagu soo kordhinayo magaalada Muqdisho si aan u arag nala socdo hadda waxaan fuulaynaa jaranjarada nala socdo maanta qof aan u jeeday lugaha ka dhidida billaah ya hey let's go waad aragtaan waxaan saaranahay fooqa sare ee dabaqa Dahab Tower ninkii Axmed ahaa waa kaas halkaas u taagan yahay
axmed maxaa kuu baxay والله waxaan dhir ma dhihi karo dabcan weli dabaqan ma dhow waxaan saaranahay hadda wiishka qaybihiisii ugu sarreysay dabaqana dabcan dhismaha ku socda gurigan waana qorax dhaco dabcan salaadii maghrib ayaa soo gashay iyadoo muuqaalo badan weli aan qabsanin marka waxay ku qurux badan tahay Soomaaliya inaan waqti hore imaadno si maaragtay muuqaalo badan aan u qaban aad iyo aad guud ahaan muuqaalkeena dabaqa sare ayaan ku soo xiraynaa nabadgelyo